kulanti haboon daawadayaal meel kaste oo joogtaan waxaad ku soo dhawaataan warkayga caawa oo isniin ay soo galayso qodobada warka caawa ugu doorona daawadayaal waxay kala yihiin Wasaaraha Itoobiya Mr Abiy Ahmed oo dhamaystay booqashadii uu ku yimid Jamhuuriyadda Djibouti oo ahayd 24 saac wararka caalamkana dalka Mali waxaan yahaynaa dad fara badan oo lagu laayay kuwaas baa daawadayaal qodobada warka caawa ugu dooron warka caawana waxa uu yahay mid si gaar ah aan ugu doorbinay inaan uga hadalno booqashadaasi Jamhuuriyadda Djibouti oo ku yimiday Wasaaraha dalkaasi Itoobiya kaas oo xoojin ku ballan qaaday xiriirka iyo iskaashiga u dhaxeeya Jamhuuriyadda Djibouti iyo sidoo kale Jamhuuriyadda Federaalka Itoobiya qodobkaas baa warka caawa daawadayaal ugu muhiimsan oo aad kala soconaysaan tabinta tooska warka ee TV-ga qaran ee Jamhuuriyadda Djibouti ka ahaana waxaad ku soo dhawaataan warkii oo faahfaahsan bismillaahir rahmaanir rahiim Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Itoobiya Mr Abiy Ahmed ayaa waxa uu maanta gali dambe ka anbabaxay caasimadda Djibouti isaga oo sii jeeda xarunta Addis Ababa ee dalka Itoobiya Wasaaraha Itoobiya ayaa waxa uu dhamaystay booqashadii rasmiga ahayd ee 24 saac ee ku yimiday Jamhuuriyadda Djibouti kadib markii uu martiqaad ka helay madaxweynaha Jamhuuriyadda Mudane Ismaaciil Cumar Geelle Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Itoobiya ayaa waxa garoonka caalamiga ee diyaaradaha ku sii sabootiyay Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Djibouti Mudane Abdulqaadir Kaamil Mohamed hoolka marti sharafka ee garoonka caalamiga ee diyaaradaha ayaa waxa labada ra'iisul wasaare ay kaga wada hadleen ugu dambeyn iskaashiga iyo cilaaqaadka Djibouti iyo sidoo kale Itoobiya iyadoo Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Mudane Abdulqaadir Kaamil Mohamed uu u rajeeyay guul iyo sidoo kale safar wanaagsan in uu ku gaaro xarunta dalkaasi Itoobiya oo ah magaalada Addis Ababa kulankaasi ayaa waxa isagu ahaa midii uu ku anbabaxay wasaaraha dalkaasi Itoobiya waxa ka qayb qaatay qaar kamid ah xubnaha xukuumadda saraakiil sare oo iskugu jiray rayid iyo military iyadoo ugu dambeynna Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Itoobiya Mr Abiy Ahmed oo qacan qaaday Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Mudane Abdulqaadir Kaamil Mohamed inta ku sugnaa Jamhuuriyadda Djibouti Mr Abiy Ahmed ayaa waxa uu kulamo kala duwan la yeeshay madaxweynaha Jamhuuriyadda Mudane Ismaaciil Cumar Geelle waxana amuuraha ay ka wada hadleen ugu muhiimsan sidii loo dardar gelin lahaa cilaaqaadka Djibouti iyo Itoobiya iyadoo labada hogaamiye ay ka go'an tahay in kor loo qaado arrimaha dhaqaalaha ganacsiga iyo sidoo kale wada shaqaynta ka dhaxaysa Jamhuuriyadda Djibouti iyo sidoo kale Jamhuuriyadda Federaalka Itoobiya madaxweynaha Jamhuuriyadda Mudane Ismaaciil Cumar Geelle ayaa waxa uu maanta qasriga madaxtooyada oo kula kulmay amba uu ku qaabilay Ra'iisul Wasaaraha cusub ee Jamhuuriyadda Federaalka Itoobiya Mr Abiy Ahmed oo booqasho rasmi ah shalay gali dambe ku yimiday Jamhuuriyadda Djibouti booqashadani Ra'iisul Wasaaraha cusub ee Itoobiya oo ugu soo baxay Jamhuuriyadda Djibouti ayaa waxa ay tahay tii ugu horeysay ee dalka Itoobiya dibadiisa waxaana ay ka dhalatay xiriirka iyo iskaashiga taariikhiga ah ee ka dhaxeeya Jamhuuriyadda Djibouti iyo Jamhuuriyadda Federaalka Itoobiya ugu horeyn madaxweynaha Jamhuuriyadda caynaashaha dalka ayaa soo dhaweyn wanaagsan u rajeeyay Ra'iisul Wasaaraha dalkaasi Itoobiya intaas kadibna labada hogaamiye waxa ay yeesheen kulan foolka-foola oo looga hadlay arrimaha ku aadan dhaqaalaha ganacsiga xoojinta ammaanka degmada Geeska Afrika iyo sidoo kale meelmarinta istiraatiijiyad ay lagu xoojinayo wada shaqaynta ka dhaxaysa Jamhuuriyadda Federaalka Itoobiya iyo Jamhuuriyadda Djibouti kulankaasi
ayaa waxaa ka qayb qaatay waftiga heerka wasiir ee warkacayay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Ethiopia xagga Djibouti waxa uu joogay wasiirka arrimaha dibadda ee iskaashiga caalamiga wasiirka dhaqaalaha iyo maaliyadda wasiirka miisaaniyadda iyo sidoo kale xubno kamida madaxtooyada iyo sidoo kale mas'uuliyiin iskugu jirtay rayid iyo military haddaba daawadayaal wararkaas haddii aan ku sii socono madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geele iyo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Ethiopia ayaa waxa si wada jir ah maanta ay u gudoomiyeen kulanka wada tashiga ee guddiga isku dhaafka ee Djibouti iyo Ethiopia kaas oo ka dhacay hoolka shirarka ee madaxtooyada ee jamhuuriyadda Djibouti kulankaasi ayaa waxa lagu soo qaaday dardargelinta iskaashiga soo jireenka ah ee ka dhaxeeya jamhuuriyadda Djibouti iyo jamhuuriyadda federaalka Ethiopia gaar ahaan xagga dhaqaalaha ganacsiga arrimaha diblomaasiyadda ammaanka gaashaandhigga ka wada shaqaynta danaha ee heerka degmo ee Djibouti iyo Ethiopia iyo sidoo kale istaageersiga shucuubta labada dal iyadoo kulankaasi oo u dhacay jawi heer sare ayaa waxa uu joogay xagga Ethiopia xubnaha heerka wasiir ee ka qayb qaatay booqashada ugu horeysay ee ra'iisul wasaaraha Ethiopia ugu soo baxay jamhuuriyadda Djibouti oo tii ugu horeysay ee dibad ugu baxo tan iyo markii loo caleemo saaray hoggaanka dalkaasi Ethiopia xagga Djibouti waxa uu joogay xubnaha qaar kamid ah xukuumadda iyo sidoo kale mas'uuliyiinta xafiisyada dawladda gaar ahaan agaasimayaal sida agaasimaha gudoomiyaha maamulka marsooyinka iyo goobaha ka caagan cashuuraadka iyo agaasimaha dhabaha xadiidka ee jamhuuriyadda Djibouti kulankana waxa uu dhacay jawi heer sare oo ay ka muuqatay saaxiibtinimada taariikhiga ah ee walaaltinimada ku dhisan ee u dhaxaysa Djibouti iyo Ethiopia ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Ethiopia oo ugu horeyn kulankaasi khudbad ka jeediyay ayaa waxa madaxweynaha jamhuuriyadda uu uga mahad celiyay soo dhaweynta wanaagsan ee diiran waxana uu sheegay in farxad aan la soo koobi karin ay u tahay in safarkiisa ugu horeeyay ee dibad uga baxo oo ka dhigay jamhuuriyadda Djibouti taasna waxay tahay buuri qiimaha gaarka ah ee Djibouti agtayda ay ku leedahay haddaba waa tan qaybtii ugu horeysay ee daawadayaal la socod wanaagsan raise some example as social relations. Ethiopia and Djibouti have mudane madaxweyne waxaan kaaga mahadnaqin sida wanaagsan ee walaaltinimada leh ee aad ii soo dhaweysay aniga iyo waftiga aan horkacayo booqashadani waxa ay tahay mid taariikhi ah oo ka dhalatay wada shaqaynta joogtada ah ee ka dhaxaysa jamhuuriyadda Djibouti iyo jamhuuriyadda federaalka Ethiopia labadeena dal waxa aan wadaagnaa cilaaqaad taariikhiya waxaana oo ka marakacaya sida wanaagsan ee wada shaqayn buuxda ay inooga dhaxayso waxaana aan wadaagnaa sidoo kale soodin mida dhaqan mida luqad mida qorshe hore u marineed oo aan ka midaysanahay intaasi oo dhan waxa dheer oo aan qabaa in Ethiopia iyo Djibouti ay yihiin laba dal oo wada jirka dawladnimo u bislaaday xaqiijiyana iskaashi heer sare ah labadeena dal waxaan isla qaadanay meelmarinta iskaashi ku dhisan in aanu gaadhno guul hor leh oo inoo horseeda koboc iyo horumar dhaqaale oo la taaban karo ra'iisul wasaaraha Ethiopia waxa uu yiri oo kale isla khudbadaasi waxa iga go'an in aan xoojiyo iskaashiga Djibouti iyo Ethiopia waxaana aanu kor u qaaday cilaaqaadka labada dal mid soo jireen ayuu yahay balse waxaan ka qayb qaadan doorkeyga kor u qaadistiisa ugu dambeyn Mr. Abiy waxa uu xusay in jamhuuriyadda Djibouti iyo Ethiopia ay si midaysan uga shaqayn doonaan qadiyadda horumarka dawladnimada Soomaaliya iyo sidoo kale la dagaalanka kooxaha xagjirka iyo ururka Al-Shabaab sidii degmada Geeska Afrika ay u noqon lahayd buuri mid xasilooni iyo nabad waarta laga arko madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geele oo isaguna kulankaasi khudbad ka jeediyay ayaa ugu horeyn soo dhaweyn wanaagsan oo diiran waxa uu rajeeyay ra'iisul wasaaraha cusub ee Ethiopia Mr. Abiy Ahmed intaasi kadib madaxweyne Geele waxa uu ka hadlay in ay ka go'an tahay geestiisa sidii kor lagu qaadi lahaa cilaaqaadka labada dal la socod wanaagsan daawadayaal president Geele mon cher frère Dr. Abiy Ahmed Ali Premier ministre de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, messieurs les ministres et délégations éthiopiennes, mesdames et messieurs, encore une fois. walaalkay Mr. Abiy Ahmed Ali oo ah ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Ethiopia iyo wafdiga heerka wasiir ee warkacayo waxaan idin sheegayaa in farxad aan la soo koobi karin ay ii tahay in aan idinku soo dhaweeyo halkani Djibouti oo ah dalkiinii labaad
marka ugu horeysa waxaan idinku hambalyeyn kalsoonida aadka u ballaadhan ee aad ka hesheen baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Itoobiya taasina waxay ka turjumaysaa sida aad u kasbateen rabitaanka baarlamaanka iyo shucuubta baaxadda leh ee dalkaasi Itoobiya khibradda iyo aqoonta aad u leedihiin siyaasadda hogaaminta dalka Itoobiya ayaa waxa ay dhalisay in aad heshaan kalsooni idin suurta gelin doonta inaad hoggaanka u qabataan dalka Itoobiya oo aad u horseedaan horumar dhaqaale isdhexgal bulsho iyo xoojinta ammaanka jamhuuriyadda federaalka Itoobiya mudane ra'iisul wasaare iyo dhammaan walaalahayga heerka wasiir ee kulankani ku sugan waxaan halkani ka tilmaamayaa in ay inaga go'an tahay taageerada jamhuuriyadda federaalka Itoobiya iyo hawshaasi qaranka Itoobiya oo idin igmaday in aan idin kala shaqeyno haddii aan nahay maamulka jamhuuriyadda Djibouti waxaan ku ganacsanahay in hawsha hogaaminta dalkaasi Itoobiya ama jamhuuriyadda federaalka Itoobiya aad ku guuleysan doontaan jamhuuriyadda Djibouti iyo jamhuuriyadda federaalka Itoobiya ayaa waxa ay wadaagaan xiriir taariikhi oo soo jireen ah oo ku dhisan dhinacyo fara badan iyadoo labadeena dal ay wadaagaan luqad iyo dhaqan midaysan kaas oo soo ahaa mid soo jireen ah oo ka dhaxeeya shucuubta walaalaha ah ee jamhuuriyadda Djibouti iyo jamhuuriyadda federaalka Itoobiya muddo hadda laga joogo in ka badan 10 sano labadeena dal waxa ay isla meel dhignay oo aan garanay inaan xoojino wada shaqaynteena waxaana aan xaqiijinay meelmarinta istaraatiijiyad cad oo ku dhisan wada shaqaynta oo inoo suula gelinaysa horumar waara istaraatiijiyadaasi ayaa waxa ay tahay mid hadda dhalisay koboc dhaqaale oo xoogan kaas oo ka yimiday kaabayaasha dhaqaalaha ee inaga dhaxeeya annaga iyo idinka oo wakiil u ah jamhuuriyadda federaalka Itoobiya kaabayaashaasi dhaqaale ayaa waxa hadda ka mid ah tareenka cusub ee casriga ah ee ka dhaxeeya jamhuuriyadda Djibouti iyo jamhuuriyadda federaalka Itoobiya waxaana kaabayaashaasi dhaqaale ay yihiin kuwo inoo suura gelin in aanu gaadhno horumar baaxad leh oo madax bannaan oo xagga dhaqaalaha iyo ganacsiga oo ay gaadhaan Djibouti iyo Itoobiya Ismaaciil Margeele waxa uu ka hadlay cilaaqaadka iyo iskaashiga xagga ku aadan kaabayaasha dhaqaalaha ee Djibouti iyo Itoobiya sidoo kale presidentku waxa uu ka hadlay ama madaxweynuhu xoojinta arrimaha degmada iyo in la iska kaashado ammaanka iyo xasiloonida markale daawadayaal la socod wanaagsan madaxweynaha jamhuuriyadda qui relève pour certains des facteurs endogènes dhammaantiin waxa ah inaan ogaano caqabaha in hor yaala xagga maalgashiga iyo sidoo kale xagga khayraadka waxaana sidoo kale intaas soo raaca nidaamyada loo dhigay ganacsiga adduunka oo ah mid aan suubaneyn iyo sidoo kale saameynta faragelinta shisheeye ee iyadu jirta mudane ra'iisul wasaare waxa maragma doon ah in aanu xoojino iskaashiga inaga dhaxeeya iyo hore u socodka dhaqaale ee aanu hiigsanayno oo ah inaanu hormood u noqono degmada geeska Afrika inteeda kale saasi darteed waxa muhiim ah mudane ra'iisul wasaare in aanu dardar galino wada shaqaynta sidii aanu u gaari lahayn higsigaasi iyadoo aan hirgelinayno heshiisyadii aan saxanay ee Djibouti iyo Itoobiya ka dhaxeeya oo ku saabsan dhinac walba waxana ay yihiin kuwa loogu talagalay ama aan ugu talagalay in aanu ku xoojino horumarka bulshada dhaqaale ee ka dhaxeeya jamhuuriyadda Djibouti iyo jamhuuriyadda federaalka Itoobiya waxa ah in aanu sameeyno talaabooyin ee suura gelinaya in aan tayagelino hay'adaheena sidii wax isdaafsiga ganacsi ee labada dal oo u noqon lahaa mid ka jawaaba baahida jirta korna u qaado koboca dhaqaale iyo ganacsi ee ka dhaxeeya Djibouti iyo Itoobiya sidaad ogtahay ma gaari karno mudane ra'iisul wasaare horumar baaxad leh kamana gudbi karno caqabaha in hor yaala haddii ay noqoto heer qaran iyo sidoo kale mid degmo haddii aanu xooga saarin adkeynta ammaanka dalalkeena iyo arrimaha daaqiliga iyo sidoo kale xaaladaha kala duwan ee ka jira degmada geeska Afrika ee aan ku naalno
haddii kaabayaasha dhaqaale ee aanu wadaagno ay yihiin kuwana gaarsiinaya tallaabooyin hor leh oo guula ah balse waxaan ognahay in degmadeennu ay tahay mid halis iyo dhibaatooyin kala duwan ay ka jiraan gaar ahaana xaaladaha ka jira dalka Soomaaliya iyo sidoo kale dalka Suudaan waxaana soo raaca dhibaatooyinka labadaasi dal ka taagan arrinta ah argagixisada iyo xagjirnimada ba'an oo halis cad u ah ammaanka dalalkeena gaar ahaan Itoobiya iyo sidoo kale Jamhuuriyadda Djibouti oo hormuud ka ah degmada Geeska Afrika waxaana muhiim ah inaanu xoojino iskaashigeena dhinac walba oo aan ka shaqeyno ammaanka iyo xasiloonida degmada Geeska Afrika mar kale waxaan xaqiijin ayuu yiri President Gele dardargelinta walaaltinimada inaga dhaxaysa iyo cilaaqaadka dhinac walba sidii aan u gaarsiin lahayn guul shucuubta Jamhuuriyadda Djibouti iyo Jamhuuriyadda Federaalka Itoobiya waxaana aan mar kale hadalkayga aan ku soo gunaanadii aniga oo guul idin rajaynaya وعلى سعتين مدحوينها الجمهورية دامدان إسماعيل عمر جيله خطبة وكتشيدي كلان كعسية إسكوجي مادين جودة إسكودافكا جيبوتي إثيوبيا ومانتا سودة جرأة أي أوجدوميين إسقى رئيس وزراء هذا كعسي إثيوبيا كلان كعسي كدب هذا واحد وديال لبده هجامية وحيلها لين وربعينته وحنا أي أوجحك ورمان قضبة أي كود حاجودين loogu talagalay horudhiga cilaaqaadka Djibouti iyo Ethiopia marka abdi ayaa inoo hayso wararkaasi marka madaxweynaha jamhuuriyadda iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha Ethiopia saxaafadeed bay qabteen saxafiyiin fara badan oo maxalliya iyo kuwa ka socday dalkaasi Ethiopia ayaa ka qayb qaatay sidoo kale waxa uu joogay xubnaha xukuumadda waftiga balaaran ee warkacayo ra'iisul wasaaraha dalkaasi Ethiopia labada hogaamiye Djibouti iyo Ethiopia warbaahinta maxay u sheegeen aad baa maasantay aan ku horeyno Nasro ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee Ethiopia kolkii uu ka jawaab bixiyay su'aalaha kaga yimid saxafiyiinta ee shir saxaafadeedkaasi aad ayaan uga mahad celinayaa biiro hortaba madaxweynaha jamhuuriyadda iyo mas'uuliyiinta dalka soo dhaweynta deeran ee aan kala kulmay ra'iisul wasaaraha Ethiopia ayaa ka jawaab bixiyay su'aalaha kaga yimid saxafiyiinta oo ka hadlayay shir saxaafadeedkaasi labada hogaamiye oo ahaa xiriirka laba geesoodka iyo istiraatiijiga ah ee ka dhaxeeya Djibouti iyo Ethiopia Dr. Abiy waxa uu hoosta ka xariiqay hadaba in ay muhiim tahay inaynu wadaagno wiri amniga gobolka xasiloonida gobolka iyo helitaanka koboc dhaqaale oo wanaagsan oo labada dhinac dhexmara waxaanu hoosta ka xariiqay sidoo kale walaaltinimada soo jireenka ah amba xiriirkan raadiyay cilaaqaadka soo jireenka ee labada ummadood iyo labada dal waxaan aad u soo dhaweynayaa wiri sida aan uga shaqeynayno isdhexgalka dhaqaale ee labada dal intaasi kadibna madaxweynaha jamhuuriyadda mudan Ismaaciil Cumar Gile oo isagoo ka jawaab bixiyay su'aalaha kaga yimid saxafiyiinta shir saxaafadeedkaasi u joogay waxa uu yiri madaxweynaha jamhuuriyadda munaasabada booqasho ee ra'iisul wasaaraha federaalka ee Ethiopia Abiy Ahmed Ali oo aan ku soo dhaweynay jamhuuriyadda Djibouti taas oo ahayd booqashadiisii koowaad ee dibadda ugu baxo waxaan aad ugu bognay xiriirka walaaltinimo ee u dhaxeeya labada dal waxaanu ku talaabsanay sidii aynu u xoojin lahayn xiriirka iyo cilaaqaadka inaga dhaxeeya iyadoo aynu wadaagno wax badan oo u dhaxeeya labadeena ummadood iyo dalba iyo aragti midaysan dhinaca gobolka oo isku mid ah waxaanu rabnaa inaynu sii wadno rafiiqa walaaltinimo si aynu gacan uga geysano horumarka iyo bulshada dhaqaale waxa uu yahay qorsheenu xoojinta isdhexgalka dhaqaale ee labada dal iyo suuragalnimada dadkeena inay ku noolaadaan nolol wanaagsan isdhexgalka labadeena dal ayaa ah mid aad u ballaaran waxaanu rabnaa in aan sii wadno isdhexgalkaasi oo qayb ka mid ah aynu ku wadno kabayaal horumarineed oo inaga dhaxeeya labada dhinac hadii ay noqoto warisgaarsiinta marsooyinka khadka hawada biyaha beeraha warshadaynta waxaan ku tala jirnaa biri koruqaadka istiraatiijiyadeena horumarka isdhexgalka si aynu u shaqeyno biri hab adeeg tusaale u ah wadamada gobolka dhinaca amniga labadeena dal waxa uu ciidan ka joogaa biri dalka Soomaaliya iyo dalal kaleba waxaynu u shaqeynaa qaab hawlgal oo lagu xasilinayo dalka Soomaaliya iyadoo dalka Ethiopia uu hawlgal kala duwan isaguna ka wado dalka Suudaan Koonfureed waxaynu nahay isku geeyo ka shaqeynta nabadda iyo ku hawlgalka wixii taalkeena ah iyadoo aynu aaminsanahay talaabo kasto oo aynu qaadno intaasi kadib Nasro ra'iisul wasaaraha federaalka Ethiopia Abiy Ahmed Ali
oo soo gaaray jamhuuriyadda Djibouti haddii aan kor xaadiyo on booqashadiisa ee ku marayay jamhuuriyadda Djibouti Abiy shalay waxa uu ka soo degay garoonka diyaaradaha ee caalamiga ee Djibouti waxaana halkaasi si diiran oo kaliya laba ku soo dhaweeyay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geele iyo xubnaha xukuumadda oo soo dhaweyn aad u heer sareysa halkaasi uu kala kulmay ra'iisul wasaaraha Ethiopia booqashadaasi kadib xalay waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geele uu ku casuumay qasriga madaxtooyada casho sharafeed aad u heer sareeya ah oo loogu muujinayay qiimaha iyo xiriirka iyo cilaaqaadka nidaamka u dhaxeeya labadeena dal booqashadiisa ayaa waxa laga dheehan karayaa ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed Ali in ay tahay in hortaba uu ku cusub yahay xilka ra'iisul wasaarnimo ee dalkaasi Ethiopia taasina ay markaas uu ku doorbiday amba uu ku xushmeynayo in booqashadiisani ay tahay booqashadii ugu horeeyay ee dal dibadda oo ugu baxo ra'iisul wasaare Abiy waxaana suuragelinaysaa booqashadaasi isbarasho labada hogaamiye ee madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed Ali haddaba intaasi kadib cashadaasi casho sharafeedkaasi Dr. Abiy waxa intaasi kadib saaka ay wada qabteen labada hogaamiye shir isku dhaf labada dhinaca Ethiopia iyo Djibouti oo ay kaga wada hadlayeen xiriirka iyo cilaaqaadka wanaagsan ee labada dhinac kulankaasi maanta ay yeesheen madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra'iisul wasaaraha iyo wufuudda labada dhinaca waxa ay u asmaxaysa isagoo ku cusub in wax badan uu ka ogaado isdhexgalka labada dal ee Djibouti iyo Ethiopia siyaasad ahaan socdaalkani waxa ay tilmaamaysaa heerka cilaaqaadka wanaagsan ee labada dhinac intaasi kadibna labada hogaamiye waxa ay qabteen shir saxaafadeed markaasi su'aalo badan ay ka weydiiyeen saxaafiyiintu cilaaqaadka iyo kulay isdhexgalka dhaqaale ay wadaagaan labada dhinac Dr. Abiy gabagabadii shir saxaafadeedkaasi waxa uu gaaray dhismaha golaha baarlamaanka ee dalka halkaasi oo si diiran ay ugu soo dhaweeyeen gudoomiyaha golaha baarlamaanka iyo dhammaan xildhibaanada golaha baarlamaanka ee dalka oo markaasi khudbad dhaxalgal ah uu ka jeediyay taas oo soo dhaweyn iyo uu ku xusay Dr. Abiy cilaaqaadka labada dal Dr. Abiy intaasi kadib maanta waxa uu gaaray oo boqoshin ku soo gaala bixiyay marsooyinka dalka iyo goobaha ka caagan dalkeena goobaha ka caagan ee cashuuraadka dalkeena halkaasi oo looga macna bixiyay qaybaha shaqo iyo hawlgal goobaha cashuuraadka iyo nidhaahday marsooyinka dalka Dr. Abiy gabagabadii booqashadiisa maanta ayuu markaasi ku soo goobay waxaana maanta galabta uu ka ambabaxay dalkiina isagoo u sii jeeday dalkiisa waxaana uu uga mahad celiyay inta uu ka ambabixin dalka madaxweynaha jamhuuriyadda soo dhaweynta iyo sida diiran ee dalka jamhuuriyadda Djibouti looga soo dhaweeyay maatan marka abdi waxay ahayd aragtida saxaafi ahaaneed guud ahaan booqashadaasi sadorkiisay iyo wixii kaga soo baxay ayaad u soo gudbisay dadweynaha reer Djibouti meel kasta ay joogaan aad baan kaga baahanahay marka abdi waan isku soo laami doonaa falaya wararka caalamka oo xagga dambe inoo marsan sidoo kale daawadeen wararka inoo xadar waxa kamid ah ciyaarihii dalkana laga soo gabagabeeyay oo xagga dambe aad idin marinay balse waxaan ku sii soconaynaa booqashadaasi Djibouti uu ku yimiday ra'iisul wasaaraha dalkaasi Ethiopia iyo soo dhaweynta Suuriyiinta diiran ee madaxweynaha jamhuuriyadda uu diyaariyay haddaba kadib markii la soo gabagabeeyay maanta kulankii rasmiga ahaa ee saxaafadeedkii ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Ethiopia ayaa waxa uu u dhaqaaqay halkaas dhismaha golaha baarlamaanka jamhuuriyadda Djibouti goobtaas markii uu gaaray waxa si diiran u soo dhaweeyay gudoomiyaha golaha wakiilada ama golaha baarlamaanka jamhuuriyadda Djibouti mudane Maxamed Ali Xumed waxaana uu joogay soo dhaweyntaasi ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane Cabdulqaadir Kaabil Maxamed qaar kamida xubnaha xukuumadda xildhibaanada golaha baarlamaanka waxaana uu noqonayaa madax fara badan iyo hogaamiyayaal gaaray baarlamaanka jamhuuriyadda Djibouti ayuu ka mid noqday ra'iisul wasaaraha cusub ee jamhuuriyadda federaalka ee Ethiopia haddaba madaxweynihii ugu dambeeyay ee gaaray baarlamaanka jamhuuriyadda Djibouti ayaa waxa uu ahaa madaxweynihii dalka Guinea oo toddobaadkii aanu soo dhaafnay imiday jamhuuriyadda Djibouti ee khudbad ballaaran ka jeediyay baarlamaanka jamhuuriyadda Djibouti balse tan waxa ay tahay tu kale oo ka duwan oo ka turjumaysa xoojinta doorka dalkeena uu ku leeyahay qaaradani Afrika saas darteed gudoomiyaha golaha baarlamaanka ayaa ugu horeyn soo dhaweyn wanaagsan u rajeeyay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Ethiopia intaasi kadibna waxa uu halkaasi ka akhriyay khudbadda soo dhaweynta balse ra'iisul wasaaraha Ethiopia ayaa waxa uu saxay diiwaanka baarlamaanka jamhuuriyadda Djibouti isagoo oo hadda ku beeray madaxda diiwaankaasi baarlamaanka jamhuuriyadda Djibouti saxay khudbadna ka jeediyay
waxaana kulankaasi loogu talagalay ee soo dhaweynta xagga baarlamaanka jamhuuriyadda Djibouti ay u dhacday jawi heer sare ah. gudoomiyaha golaha baarlamaanka mudane maxamed cali xamed oo halkaasi khudbad ka jeediyay ayaa waxa uu akhriyay khudbadda soo dhaweynta isagoo oo ka hadlay in ay dalkeena oo qaaday talaabooyin hor leh oo lagu xoojinayo cilaaqaadka Djibouti iyo sidoo kale Ethiopia. wariye Khadar Cabdullaahi ayaa inoo soo eegay hadalkii soo dhaweynta ee gudoomiyaha baarlamaanka. Ici chez vous et nos liens fraternels qui ne datent pas d'hier et qui ont su traverser le temps pour se renforcer sont une fierté pour nous tous. mudane ra'iisul wasaare farxad weyn oo dareen xambaarsan ayay maanta ii tahay aniga oo ku hadlaya magaca dadweynaha iyo magacayga gaarka ah in aan si diiran adiga iyo waftigaaga ballaaran kugu soo dhaweeyo jamhuuriyadda Djibouti oo ah dalkaaga labaad. waxa kaloo sharaf iyo farxad inoo ah in golaha baarlamaanka jamhuuriyadda Djibouti aan si diiran aniga iyo xildhibaanada aan kugu soo dhaweyno dhammaan waftiga ballaaran ee horkacaysay iyo adigaba. waxaad joogtaa waddankaagii labaad martina kuma tihid xiriirkii iskaashiga labadeena wadan ma aha kuwa soo bilaabtay shalay balse waxa ay soo jireen qarniyaal waxaana labadeena dal ay si dhab ah uga wada shaqeeyaan horowdhiga dhinac walba iskaashiga dhaqan dhaqaale ee wadaagaan oo dhammaanteen farxad iyo sharaf inoo ah. aniga oo ka faa'iideysanaya fursadan mudane ra'iisul wasaare waxaad ii ogolaataa in mar kale kugu hambaliyeeyo guusha doorashada xilka ra'iisul wasaarenimo ee Jamhuuriyadda Federaalka Dimuqraadiga Itoobiya. waxaana doorashadaasi ka muuqaal bixinaysaa rabitaanka shucuubta Itoobiya ee ah in aad tahay shakhsi nabadda midnimada dalka sii xoojin kara oo suuro gelin kara in la kordhiyo dadaalka Itoobiya ee kor u qaadida wadajirka iyo wax wada qabsiga midnimo ee walaalaheena Itoobiya. khudbadda munaasabadda caleemasaarka waxaad si dhab uga hadashay adkeynta midnimada qaranka wax wada qabsiga iyo isku tiirsanaanta horumar dhaqaale oo miro dhasho oo intuba aan ka maarsamin xasilooni dalkeena isagoo uu hormood ka yahay madaxweynaha jamhuuriyadda. waxaan si dhab ah idinla qaybsanaynaa aragtiyaha waxaynu xoogga saaraynaa isdhexgalka dhaqan dhaqaale oo qaramada Afrika ku dayasho mudan aan u noqonayno sida jamhuuriyadda Djibouti iyo jamhuuriyadda Federaalka Dimuqraadiga Itoobiya wadaagaan ee ku aadan adkeynta nabadgelyada xoojinta iskaashiga dhaqan dhaqaale bulsho iyo horumarinta dhaqaalaha intuba aynu u noqonayno tusaale muuqda qaramada Afrika. boqoshadaada koowaad meel ka baxsan Itoobiya waxaad ku doorbiday jamhuuriyadda Djibouti. tallaabada ayaa ka turjumaysa sida jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya ay ugu weyn tahay danaha dhaqan dhaqaale ee kala dhaxeeya jamhuuriyadda Djibouti. ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Itoobiya oo halkaasi khudbad ka jeediyay baarlamaanka Djibouti ayaa waxa uu tilmaamay inay ka go'an tahay xoojinta cilaaqaadka heer baarlamaani ee Djibouti iyo Itoobiya. mar kale wariye Khadar Cabdullaahi ayaa inoo soo eegay hadalkii ra'iisul wasaare Abiy Ahmed. I feel honored to address the National Assembly and its distinguished members, and through you waxaa sharaf weyn ii ah in aan halkan golahan aan ka hadlo aniga oo la hadlaya xubnihiisa sharafta leh iyo dadweynaha sharafta badan ee jamhuuriyadda Djibouti. aniga oo ka faa'iideysanaya fursadan qaaliga ah waxaan jeclahay in aan u mahadceliyo madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geele dawladda iyo shacabka walaalaha nahay ee jamhuuriyadda Djibouti. waayo soo dhaweyn diiran ayaan kala kulmay aniga iyo waftiga aan horkacayo tan iyo kolkii aan soo gaadhnay magaaladan quruxda badan ee Djibouti. sidaad ogtihiin xiriirka taariikhiga ah ee labadeena dal tusaale uma aha oo kaliya xubnaha urur goboleedka IGAD balse waxa uu tusaale cad u yahay dhammaan qaramada Afrika. xiriirkeena inoo dhaxeeya waa mid qura iyo ummad kaliya oo ku nool laba dal iyo laba qaran oo daris ah oo wadaaga mustaqbal qura oo mideeya oo xaq walaaltinimo qoto dheer ah oo taariikhi ah aaminaad iyo ixtiraam danaheena istiraatiijiyadeed oo si wada ah faa'iido u ah dadyowga dalalkeena gobolka iyo sidoo kale guud ahaan Afrika. xiriirkeena waxa uu ku xoogaystay waqti taasina waxa sabab u ah aragtiyaha hoggaan aragti wadaag iyo rabitaanka kala go'an lahayn ee ku aadan isdhexgalka dhaqan dhaqaale ee labadeena dal. waxayna ka marafurayaan firfircoonida iyo dhiirigelinta habboon ee xiriirka labadeena dhinac ee dhammaan dhinacyada. waxaan ku faraxsanahay wada shaqaynta asaaska adag ee inamidaysa. waxaynu meel marnay tilaabooyin wax ku ool ah sida guddiga isku dhafka ah ee heerka wasiir oo inaga caawiya in aynu ka doodno arrimaha qaarkood ee danta guud. gees kale horumarkeenu waxa uu ku saleysan yahay dhismaha wadooyinka isticmaalka marsooyinka tareenada
tareenka shabakadaha isgaarsiinta iyo isku xidhka korontada kuwaasi oo dhammaantood gacan ka geysanaya horumarinta dhaqaalaheena iyo barwaaqaynta dadkeena. waxaa kaloo ay fudaydinayaan isdhexgalka gobolka ee aynu aanba qaadnay. khadka cusub ee tareenka ee dhowaan la furay ee xidhiidhinaya Addis Ababa iyo Djibouti ma aha oo kaliya mid ay ku safraan dadku, laakiin sidoo kale waxa weeye mid qaadaya badeecooyinka. waa xudunta muhiimka u ah isku xidhka dhaqan-dhaqaale ee labadeena ummadood ee walaalaha ah, waana fursad ay ku sii xoojin karaan qiimaha guud ee qaaliga ah ee qaraabanimo iyo midnimo ee labadeena ummadood. inkastoo aynu xaqiijino guulo wax ku ool ah, haddana waxaa laynooga baahan yahay inaynu sii xoojino isdhexgalkeena oo aynu ballaarino iskaashigeena dhinacyada badan ee ku aadan adkeynta nabadgelyada iyo xasiloonida iyo horumarka dalxiiska intaba. doorka baarlamaanadeena iyo xildhibaanadeenu waa mid aad u muhiim ah in la sii xoojiyo xiriirka ummadaheena. ma hilmaami karo kalsoonida wada shaqayn ee wanaagsan ee ka dhaxaysa labadeena baarlamaan iyo hay'adaheena iyo weliba dadaalkooda ku aadan ee dhamaadka lahayn ee ku aadan si loo horumariyo dimuqraadiyadda. sidoo kale waxaan fahamsanahay kaalinta firfircoon ee baarlamaanadeena dalalkeenu ay ku leeyihiin urur goboleedkeena IGAD. waxaan si wada jira u dhisnay aasaaska dhismo xoogan oo ah isdhexgal dhaqan-dhaqaale. waxaana ku rajo weynahay in aynu sii adkayno dadaalka ku aadan si loo kordhiyo isdhexgal dhammaystiran oo labadeena dal oo dhammaanteen faa'iido u ah labadeena ummadood ee walaalaha ah. jamhuuriyadda Djibouti iyo jamhuuriyadda federaalka dimuqraadiga Itoobiya waxay ka wada shaqeeyaan arrimaha gobolka iyo caalamka sida IGAD, COMESA, midowga Afrika iyo qaramada midoobay. labadeena dal waxay si dhow oo guul ah uga wada shaqeeyaan si wax looga qabto caqabadaha hor yurura xasilinta gobolka iyo adkeynta nabadgelyada gobolkeena. waxay door muhiim ah kaga jiraan hawlgallada nabadgelyada ama nabad ilaalinta gobolka, isla markaana waxay hogaamiyaan dadaalka dib u heshiisiinta goobaha colaadaha gobolkeena. mudane gudoomiye walaalkay Maxamed Cali Xumed, gudoomiyaha golaha baarlamaanka jamhuuriyadda Djibouti, aad ayaan kaaga mahad celinayaa adiga iyo dhammaan xubnaha golaha sharafta badan ee sida aad iigu macsuumteen een idinla wadaagay aragtiyaha ku aadan xoojinta xiriirka iyo iskaashiga labadeena dal ee walaalaha ah. aad ayaad u mahadsantihiin dhammaantiin. intaasi kadib ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Itoobiya mudane Abiy Ahmed waxa uu gaaray maanta uun marsada jamhuuriyadda Djibouti ee TGD waxaana marsadaasi ay tahay mid maamulkaasi marsooyinka iyo goobaha ka caagan cashuuraadka ee jamhuuriyadda Djibouti maamulkeegu uu hoos yimaado. halkaas ra-iisul wasaaraha Itoobiya markii uu soo gaaray waxaa si diran u soo dhaweeyay gudoomiyaha maamulka marsooyinka iyo goobaha ka caagan cashuuraadka ee jamhuuriyadda Djibouti, waxaana looga macna bixiyay qaybaha kala duwan ee marsadaasi adeegyada ay fuliso, taas oo iyadu ah mid ka jawaabta baahida iyo dalabka baayac mushtarka iyo sidoo kale buucsharadaha kala duwan u socda dalkaasi Itoobiya, iyadoo dalkeenu uu yahay marinka dalkaasi Itoobiya, iyadoo buucsharada kala duwan iyo kontanelo fara badan maalintii ay u baxaan dalkaasi Itoobiya. soo dhaweyntaasi marsada jamhuuriyadda Djibouti ee doorale ee Abiy Ahmed markii uu gaaray waxa uu joogay wasiirka gaadiidka ee jamhuuriyadda Djibouti iyo sidoo kale shaqaalaha diiran ee firfircoonada leh ee ka howlgala marsadaasi jamhuuriyadda Djibouti, kuwaas oo ugu talagalay in jawi heer sare ah ay u soo dhaweeyaan ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Itoobiya oo booqasho maanta ku joogay jamhuuriyadda Djibouti. sidoo kale ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Itoobiya ayaa waxa uu gaaray doorale multipurpose marsada adeegyada faraha badan fulinaysa ee jamhuuriyadda Djibouti, kaas oo iyaduna mid si aad u casriyeysan oo loogu talagalay in dalkeenu uu ugu adeegi karayo dalalka degmada geeska Afrika oo ay kamid tahay jamhuuriyadda federaalka Itoobiya. halkaasina ra-iisul wasaaraha Itoobiya Mr Abiy Ahmed markii uu soo gaaray waxa si diran u soo dhaweeyay agaasimaha marsada Djibouti iyo sidoo kale mas'uuliyiinta marsadaasi, iyadoo soo dhaweyntaasi ahayd mid si heer sare ah oo ay uga qayb qaateen shaqaalaha waaxdaasi marsada ee jamhuuriyadda Djibouti. intaasi kadibna waxa looga macna bixiyay qaybaha kala duwan ee ka kooban tahay marsadaasi multipurpose oo ah marsada adeegyada faraha badan fulinaysa ee jamhuuriyadda Djibouti, iyadoo halkaasi si aad ah ugu bogay dhismayaashaasi iyadoo loogu talagalay in ay u adeegaan gaadiidka xagga badda ee jamhuuriyadda Djibouti ay ugu talagashay. waxaana uu xaqiijiyay in jamhuuriyadda Djibouti hadda ay tahay xundurta gaadiidka badda ee degmada
geeska Afrika. رئيس وزراء جمهورية الفدرالية إثيوبيا مدن أبي أحمد maanta uun inta uu ku sugnaa jamhuuriyadda Djibouti waxa kale oo gaaray goobta ka caagan cashuuraadka ee dhismaheedu hadda uu socdo iyadoo ku taala deegaankaasi uu Dooraale waxaana goobtaasi ay tahay mid loogu talagalay in ay xoojiso wax isdaafsiga ganacsiga jamhuuriyadda Djibouti iyo dalalka kale ee geeska Afrika oo Itoobiya ay ugu horeyso waxaana dhismaha goobtani ay tahay mid xukuumadda jamhuuriyadda Djibouti oo hormuud ka yahay madaxweyne Gele ay ugu talagalay ay meel mariyeen sidii dalkeenu uu noqon lahaa xundurta wax isdaafsiga degmada geeska Afrika halkaasi markii uu gaaray ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Itoobiya Mr Abiy Ahmed waxa si diiran u soo dhaweeyay ugu horeyn gudoomiyaha maamulka marsooyinka iyo goobaha ka caagan cashuuraadka ee jamhuuriyadda Djibouti iyo sidoo kale shirkadda Shiinaha ee iyadu gacanta ku haysa dhismahaasi ballaaran ee goobta ka caagan cashuuraadka ee jamhuuriyadda Djibouti taas oo ka dhalatay cilaaqaadka wanaagsan ee u dhaxeeya jamhuuriyadda Djibouti iyo dalkaasi Shiinaha. Abiy Ahmed oo ra'iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya ayaa waxa looga macno bixiyay dhismaha socda ee goobtaasi ka caagan cashuuraadka iyo adeegyada kala duwan ee loogu talagalay inay fuliso taas oo hadafka xukuumadda madaxweyne Gele uu hormuud ka yahay ay tahay sidii dalkeenu uu u gaari lahaa higsiga ah in aanu noqono xundurta degmada geeska Afrika. wararka kale ee ku saabsan oo isla booqashadaasi Djibouti uu ku yimiday ra'iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya waxa kamid ah madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa waxa uu xalay عشان شرافات وسمي رئيس وزراء dalkaasi Itoobiya Abiy Ahmed عشان شرافات kaasi ayaa waxa ay ka qabsoontay madaxtooyada jamhuuriyadda Djibouti waxaana u joogay waftiga heerka sare ee warkacay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya ugu horeyn markii uu soo gaaray madaxtooyada jamhuuriyadda Djibouti waa Mr Abiy Ahmed waxa si diiran u soo dhaweeyay madaxweynaha jamhuuriyadda mudan Ismaaciil Umar Gele waxaana hoolka ballaaran ee casho sharaafeed kaasi ay ka qabsoontay ay ku soo galeen iyaga oo ishareer socda gamcahan taas oo ka turjubaysa walaaltinimada ee buuxda ee u dhaxaysa jamhuuriyadda Djibouti iyo jamhuuriyadda federaalka Itoobiya. casho sharaafeedkani ayaa waxay ahayd mid si gaar ah loogu talagalay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya iyo waftiga ballaaran ee warkacay waxaana u joogay qaar kamid ah xubnaha xukuumadda Djibouti xildhibaanada golaha baarlamaanka iyo sidoo kale mas'uuliyiin sare oo iskugu jiray rayid iyo military qaybo kamid ah howlgallada dalka ayaa halkaasi ka tumay heesaha caan baxay ee jamhuuriyadda Djibouti iyo sidoo kale qaybtii hidaha dhaqankuna goobtaasi lagu soo bandhigay.
وزراء إثيوبيا مستر أبي أحمد وكلن كاسي عشر شرفات كخطبة كتشيدينا أيها واحد وجهرين مدحوينا جيل وجمع هنا قيس ودوين تاسي ونكسن عشر شرفات كحال اللوسين بي وحنا وحسين إن جمهورية جيبوتي أي تهاي جواب حدا كجواب يسم باهيها كلا دوان دقمدا جيس كأفريقيا دور مهم كله دقمدا عن كنا الله هذا لدى أسوحي كمدا هاين خطبة عشر شرفات كاسو كتشيدين رئيس وزراء هذا الكاسي إثيوبيا ولي خضر عبد الله باي ناصر أجي أنت كلام Mr. Ismail Omar Gule, President of the Republic of Djibouti. mudane madaxweyne sharaf farxad ku waran tahay ayay ii tahay in booqasho howleed aan ku imaad jamhuuriyadda Djibouti waxaana ugu horeyn jeclahay in si kal iyo laab ah aan kaaga mahadceliyo shacabweynaha reer Djibouti soo dhaweynta diiran ee heerka sare ee aad ii sameyseen aniga iyo wafdiga aan horkacayo tan iyo kolkii aan soo gaadhay magaalada madaxda jamhuuriyadda Djibouti ee Djibouti jamhuuriyadda Djibouti iyo jamhuuriyadda federaalka dimuqraadiga Itoobiya waa laba dal oo si dhab ah u muujiyay isku tiirsanaan iyo isdhexgal dhaqan dhaqaale oo taabagalay oo faa'iidooyin mug weyn leh oo ah dhammaan dadweynaha labadina dal ee walaalaha ah xiriirka iyo iskaashiga labada dal maaha ku dhawaan soo laabtay balse waxa weeye ku taariikhi ay xustay oo soo jireen ah oo qarniyaal ka soo gudbay waxaana sharaf inoo ah in aynu nahay laba dal oo deris ah oo wadaaga dad iyo dhaqanba oo leh aragti midaysan oo ku saleysan isqadarin iyo isfaham suuro galiyay in aynu tusaale cad u noqono isdhexgalka dhaqan dhaqaale ee gobolka Afrika iyo caalamka labadina dal waxay sii xoojinayaan dadaalka wax wada qabsiga iyo ka shaqaynta nabadgelyada xoojinta horumarka labadina ummadood ee walaalaha ah madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geele oo kulankaasi casho sharafaadka xalay isaguna khudbad ka jeediyay ayaa waxa uu tilmaamay in Djibouti mar walba ay door bidayso sidii kor loogu qaadi lahaa cilaaqaadka aan la wadaagno dalkaasi Itoobiya Khadar Cabdilaahi ayaa inoo soo eegay khudbadii madaxweynaha jamhuuriyadda الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم Monsieur le Premier ministre de la République fédérale démocratique d'Éthiopie et chers frères, Mesdames et Messieurs les invités, c'est une réelle joie et un honneur pour moi de pouvoir accueillir farxad weyn oo sharaf huwan tahay ayay dhabtii ii tahay aniga in aan maanta ku soo dhaweeyo jamhuuriyadda Djibouti ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka dimuqraadiga Itoobiya mudane Abiy Ahmed Ali iyo wafdigiisa ballaaran ee sharafta badan ee ku weheliya socdaalkiisa waxaa farxad ii ah in aniga oo ku hadlaya magaca dadweynaha iyo xukuumadda jamhuuriyadda Djibouti aan ku rajeeyo soo dhaweyn wanaagsan kuguna soo dhaweeyo dalkaagii labaad ku soo dhawow qalbi furan waxaan u haynaa adiga iyo dhammaan shacabweynaha aynu walaalaha nahay ee Itoobiya walaaltinimo iyo saaxiibtinimo mug weyn mudane ra'iisul wasaare go'aankaaga aad ku doorbiday in safarkaaga koowaad ee shaqo ee dibadda aad ku bilowdo jamhuuriyadda Djibouti waxay noo tahay sharaf aniga iyo xukuumadeeda iyo dhammaan dadweynaha reer Djibouti waxaanay ka marag furaysaa si dhab ah xiriirka wanaagsan ee mideeya labadeena ummadood ee walaalaha ah iyo xiriirka soo jireenka ah oo qarniyaal ah oo ku dhisan isweydaarsi wax wada qabsi midaysan oo aynu ku wadaagno ummad iyo dhaqanba oo midba midka kale tixgeliyo oo nabad iyo isqadarin ku wada nool
waxaad ii ogolaataa mar kale mudane ra-iisul wasaare in aan kugu tahniyadeeyo doorashada ra-iisul wasaarenimo ee baarlamaanka qaranka ee dalkaaga waxayna ka marag furaysaa doorashada kalsoonida shicweynaha jamhuuriyadda federaalka dimuqraadiga Itoobiya ay ku qabaan hogaamintaada suuban iyo in aad qaranka aynu walaalaha nahay ee Itoobiya uu ku sii joogo dhabaha horumarka nabadgelyada iyo barwaaqada waxaan rajaynayaa inuu sii xoogaysto xiriirka iskaashiga walaaltinimo ee u dhaxeeya jamhuuriyadda Djibouti iyo jamhuuriyadda federaalka dimuqraadiga Itoobiya dawadayaal qodobkaas ba ahaa warar ugu dambeeyay wararka ku saabsanaa ee booqashadaasi jamhuuriyadda Djibouti uu ku yimiday ra'iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya Mr Abiy Ahmed oo maanta gali dambaba ka laamay dalka una ka eetay halkaasi magaalada Addis ee xarunta dalkaasi Itoobiya iyadoo xalayna عشر شرافات هير سريعا مدحوينها جمهورية وسميين وراركا كلا دالك داوديال waxay yihiin ciyaarihii dalkeenu martigeliyay toddobaad kay aan soo dhaafnay oo shalay la soo gabagabay iyadoo ay la xidhiidhaba hadaba ciyaarahaasi jasiiradaha ka agdhow badweynta Hindiya ayaa shalay gali dambe ciyaar kubadda cagta oo lagu soo afmeeray waxay dhex martay kooxda kubadda cagta ee Renio iyo kooxda kubadda cagta ee Madagascar ciyaartaas waxay ka dhacday garoonka Guuleed waxaana ay ku soo dhamaatay kulankaasi oo aad u xiiso badnaa ciyaar qurux badan oo la soo bandhigay hal gool oo barbardhac ay labada kooxood ciyaartaasi ku soo dhameeyeen intaasi kadibna kulankan waxa loo guda galay gool kuleeg balse intaan gool kuleeg u tagin kulankaas waxa uu joogay oo ka qayb qaatay xogeeyada dawladda dhalanta sportiga iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale gool kuleegaasi baan soo laameynaa gulhayaha xulka jasiiradda Renio ayaa waxa uu muujiyay geesinimo isagoo oo joojiyay goolkii ugu dambeeyay ee balantii ugu dambeeyay ay laga lahaayeen ciyaartooyaasha xulka qaran ee Madagascar sidaasna Renio ayaa qaaday koobkii xagga kubadda cagta ee bilada dahabka waxaana kaalinta labaad soo gashay Madagascar Comorna kaalinta saddexaad ayay soo gashay xalayna sidaas bay kubadda cagta u dhacday isla ciyaarahaasi oo dalkeena uu martigeliyay ee la soo gabagabay xalay ayaa waxa garoonka Guuleed ka qabsoontay xaflad ballaaran oo loogu talagalay munaasabada lagu soo xirayo ciyaarahaasi dalkeena uu martigeliyay CGSOE waxaana halkaasi heesaha iyo sidoo kale hidaha iyo dhaqanka laga tumay taas oo munaasabadaasi ahayd tii lagu soo afmeeray ciyaarahaasi waxaana ka qayb qaatay guud ahaan toddobada dal ee Djibouti ay kamid tahay iyagu dalkeena ku sugnaa iyagu ciyaarahaasi sida aadka uga qayb qaadanayeen iyadoo Djibouti Madagascar Comor Renio Maurice Mayotte Seychelles ay ciyaarahaasi ka wada qayb qaateen jamhuuriyadda Djibouti ayaa ciyaarahaasi waxay ka gaadhay guulo horleb martigelinta iyo sidoo kale soo dhaweynta ku dhawaad 500 oo ciyaartooy in ka badan iyo madaxdoodii in dalkeena ay ku sugnaadaan muddo 8 maalmood ah taasoo ah rabitaanka madaxweynaha jamhuuriyadda oo in dalkeena uu martigelin karayo ciyaaro caalamiya iyo sidoo kale kuwo degmadu ay ku kulmaan guddiga qabanqaabada ciyaarahaasi CGSOE ayaa waxa ay isla xalay marxalay toole markii la soo gabagabeeyay ciyaarahaasi calanka isagoo astaanta u ah ciyaarahani la gudoonsiiyay wasiirka sportiga ee jasiiradda Maurice waxaana jasiiradaasi Maurice ay martigelin doontaa cadadka 12aad ee ciyaarahani iyadoo munaasabadaasi gudoomiyay xogeeyada dawladda sportiga ee jamhuuriyadda Djibouti Xasan Maxamed Kaamil ayaa waxa uu calankaasi isagoo astaanta waa ciyaarahan gacanta uu ka gariday guddiga u xil saaran ee ciyaarahaasi kaas oo isaguna geestiisa ku wareejiyay wasiirka sportiga ee dalka jasiiradaasi Maurice oo martigeli doonta ciyaarahaasi intaasi kadibna wasiirkaasi sportiga ee Maurice halkaasi ka hadlay ayaa jamhuuriyadda Djibouti waxa uga mahadnaqay soo dhaweynta wanaagsan waxaana uu tilmaamay in Djibouti si guul hor leh ay ka gaadhay ciyaarahaasi qabanqaabadiisa iyo biladaha kala duwan ee dalkeenu uu helay sidoo kale waxa uu sheegay in Maurice geesteeda Djibouti 10 fara badan ay ka biisatay sidii ay martigelin lahayd ciyaarahaasi ugu dambeyn daawadayaal xogeeyada dawladda arrimaha sportiga jamhuuriyadda Djibouti Mr Xasan Maxamed Kaamil oo halkaasi ka hadlayna waxa uu sheegay ugu horeyn in jamhuuriyadda Djibouti ay si aad ugu guuleysatay qabanqaabada ciyaarahaasi waxa uu taasi ku daray in madaxweynaha jamhuuriyaddu hormuudka ciyaarahani kuna amaanan yahay in ciyaarahaasi si wanaagsan ay u dhacaan kana qaatay kaalin muhiim ah martigelinta iyo sidoo kale ciyaarahaasi isagoo munaasabadii furitaanka madaxweynaha jamhuuriyaddu uu dhaqaajiyay ayuu yiri xogeeyaha sportiga ee jamhuuriyadda Djibouti waxaana taasi ku daray in hadda ciyaartooyda faraha badan ee ku soo baxay ciyaarahaasi xogeynta arrimaha sportiga gacanta ay ku hay doonto sidii loogu diyaari lahaa ciyaaraha heer degmo iyo sidoo kale kuwa caalamka
daawadayaal qodobkaasi ugu dambeeyay wararka dalka waxaana warku gala caawa wahaa mid si gaar ah aan uga hadlaynay intiisa oo badan boqoshada Djibouti uu ku yimiday ra'iisul wasaaraha dalkaasi Ethiopia oo galay dambe maanta ka baxay dalka balse wararkii degmada iyo kuwa caalamka soo leexanayna iyadoo wararka degmada ay ugu doorro yihiin fatahaad uu sameeyay webiga dhexmara magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ee dalka Soomaaliya qodobkaas baa qodobka sida aadka daawadayaal degmada ugu dooroon caawa oo Makacabdi ayaa inoo haysa mako maxaa ka soo kordhay wararka ku saabsan magaalada Beledweyne dad fara badan oo ka yimiday webiga magaaladaasi dhexmara Beledweyne ayaa waxa uu sababay in khasaare baaxad leh dadka uu geysto iyadoo barakac fara badan halkaas ka dhacay ciidamada jamhuuriyadda Djibouti talaabo geesinimo leh ay muujiyeen gurmadkana xaq hore ka soo galeen maxay nooga soo saareen kulli webigaasi waxa uu sababay fatahaado kadib kolkii roobab ani ay ka da'een toddobaadadani magaaladaasi Beledweyne biyahaasi ayaa lagu soo waramayaa in ay gaadheen 2 mitir waxayna wararku sheegayaan in bulshadii deganeed xaafadahaasi ay fatahaadahaasi gaadheen in ay markaasi waxay sababtay in ay ka barakacaan xaafadahaasi ciidanka Djibouti ee ka howlgala halkaasi ayaa iyagu markaasi qaaday daadgureynta dadkaasi iyo gargaarsiinta bulshadaasi iyadoo toddobaadadaniba fatahaadahaasi ay dhibaato u geysteen bulshadaasi markale ciidanka Djibouti waxay muujiyeen geesinimada iyo hawsha hufan ee ay ka wadaan dalka Soomaaliya Naasir waxaana taasi ay ka marakacaysaa markoo in ciidamada Djibouti ayna ku koobneen oo kaliya xoojinta ammaanka inay ka qayb qaataan oo ay la dagaalamaan ururka al-shabaab nabadiidka balse ay leeyihiin doorar kale oo ku aadan xagga bulsho in la taageero shacbiga gobolkaasi Hiiraan laga caabiyo dhibaatooyinka noocaas mararka ay soo footaraan hambalyaana ku leenahay ciidanka jamhuuriyadda Djibouti ee ku sugan ee gobolka Hiiraan ee dalka Soomaaliya qodobka kale ee wararka hadaba caalamka hadii aanu kacno Suuriya ayaa waxa lagu soo waramayaa in magaalada Dimashq hadda lagu heshiiyay sidii looga daadgurin lahaa kooxo yar oo mucaarada ku hadhan aadba marstanashay heshiis ayaa waxa uu dhaxmaray xukuumadda Suuriya iyo mucaaradka kaas oo ah inay ka baxaan dhulka ay ka degan yihiin koonfurta magaaladaasi Dimashq wararka ayaa imanaya xilli ay xukuumadda sameysay howlgallo military oo ballaaran oo ay sameeyeen wax ka bedelka hal usbuuc si ay ula dagaalamaan dagaalyahanada ka soo jeeda magaaladaasi Dimashq dhammaan goobahaasi waxay ku yaaliin bariga Yarmouk waxaana halkaasi ay ku dagaalama kooxaasi Daesh iyo ciidamada Bashar al-Assad heshiiskan wuxuu suuro gelinayaa ka bixitaanka argagixisada ee doonay in ay la baxaan qoysaskooda kuwa kalena ay rabaan inay sii joogaan sida uu sheegay irgay u hadlay mucaaradka qodobka ugu dambeeyay warka caawa daawadayaal xagga wararka dibadda waxa uu yahay Mike Pompeo madaxa diblomaasiyadda dowladda Mareykanka cusub ayaa waxa uu gaaray magaalada Riyadh isagoo ku ballan qaaday in la xoojin doono iskaashiga ka dhaxeeya Washington iyo Riyadh xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike oo booqashadiisa ugu horeysay uu ku tagay bariga dhexe tani intii loo magacaabay xilligaasi ayaa waxa uu cambaareeyay kolkii uu gaaray magaalada Riyadh ee dalkaasi Sacuudiga in dadaalada dawladda Iran ee ku doonayso inay ku carqaladeyso dawladaha gobolka Mike oo horey u ahaa agaasimiye isagoo hay'adda sirdoonka Mareykanka ee CIA-da ayaa loo magacaabay xilkan kadib markii madaxweyne Trump uu xilka ka qaaday Rex Tillerson waxaana Mike uu dalka Sacuudiga wada hadal kula yeeshay dhigiisa Sacuudi Carabiya isagoona ku nuuxnuuxsanaya sida Mareykanku ay uga go'an tahay in dawladda Iran marnaba aysan helin hubka nuclearka booqashadaasi Mike uu ku guda jiro waxa uu sidoo kale gaari doona Israel iyo dalka Urdun mahadsanid Makacabdi wararkaasi caalamka sida u soo kor xadisay daawadayaal qodobkaasi ku saabsan Mike Pompeo madaxa diblomaasiyadda dalkaasi Mareykanka booqashadiisa ugu horeeya ee ku tagay dalkaasi Mareykanka ayaa ugu dambeeyay iyadoo warka caawa daawadayaal si ballaaran aad igu soo bandhignay booqashada ra'iisul wasaaraha dalkaasi Ethiopia Dr. Abiy Ahmed oo ugu yimid jamhuuriyadda Djibouti taas oo markiisii ugu horeeyay tan iyo markii loo magacaabay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Ethiopia oo uga baxo dalkaasi Ethiopia dibadiisa Djiboutina waa ay noqotay dalka oo doorbiday taas waxay ka dhalatay la oran karayaa cilaaqaadka hufan ee madaxweynaha jamhuuriyaddu iyo sidoo kale hogaamiyaasha dalkaasi Ethiopia hadday noqoto Abiy Ahmed iyo kuwii ka horeeyay ka dhaxeeyay waxaana daawadayaal qodobkaasi uu noqonayaa ka aan ugu talagalnay inaan ku soo gabagabayno warkeena habeenkani caawa intaan warkan war lamida aan ku kulmi doono aniga oo Naasir Cumar waxaan u mahadnaqay saxafiyiinta ka qayb gashay diyaarinta warka caawa sidoo kale farsamayaqaaniinta tabinta tooska iyo sidoo kale qaybta studio-ga dhexe ee RTD warkan war lamida habeen dambe intaan isku gimi doono daawadayaal meel kasta aad joogtaan saasiyo nabadgelyo